qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool dalka gudihiisa iyo dibadiisa ee deegaanka Xudur ayaa ururka aasaasay deegaankaasi ururkaasi oo loo bixiyay Horseed sida la sheegay wuxuu ka shaqeyn doonaa arrimaha bulshada warkaasina waxa inoo haya Axmed Cali Faarax munaasabada tan xariga lagaga jirayay urur cusub oo dhawaan lagaga dhawaaqay degmada Xudur oo loogu magac daray ururka Horseed ayna iska kaashadeen dhalinyarada ku dhaqan dalka gudihiisa iyo qurba joogta ayaa waxa ugu horeynba ujeedooyinka loo asaasay iyo hadafkoodaba ka warbixiyay gudoomiyaha ururkaasi Maxamed Horri Caawil Deeriye bishii shanaad laba kulmiyo shalay toban laga asaasay waxa asaasay qolada qurba jooga oo fikirkaas ka lahaa dadku fuuliyay fikirkoodii kadib waa kala qaadanay xubinta ugu weyn oo ka weyn waxay joogtaa dalka Xudur ay joogtaa Xudur marka ku leeyahay Xudur waxay qabisan tahay Afrika magaca Xudur marka la Xudur Afrika oo dhan Xudur halkan ayaa central oo meesha ay shaqadu ay ka socotay halka labaad laga maamulayaana waa yurub ururka waxaa qorshaysan in boqol ka tirsan